xoogan ciidamada dawladda iyo jabhadda soo horjeeda dawladda ee sanam la yidhaahdo ilaa iyo boqol iyo lixdan qof oo ajnabi ah ayaa laga qaadaya magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi. Hargeysana waxaa lagu soo warramayaa inay haatan degan tahay kadib markii xalayto taxshiirado oo kala gogoonay ay ka dhacayeen. Martin Balaut ayaa waxa uu eegayaa dhibaatooyinka halkaasi ka oogan. aad ayay u adkeyd in la helo warar lagu kalsoon yahay oo ka soo baxa waqooyiga dalka Soomaaliya marka la eego dhowrkii maalmood ee laga soo gudbay. waxa kaliya ee la ogyahay lagu kalsoonaan karo waxa weeyaan in ururka SNM ee xukuumadda ka soo horjeeda ay weerareen magaalada la yiraahdo Burco Jimcihii bishii markay ahayd 27 waxaana muuqata weerarkoodii bilowga ah inay ku guuleysteen oo markaasi ay jireen magaaladaas isla markaasna ay dileen dhowr sarkaal oo ka tirsan xukuumadda. weerarka labaad ee ururkaasi SNM muuqaadana waxa ay ku qaadeen magaalada Hargeysa oo aan ahayn xarunta gobolkaas oo kaliya hase yeeshee isla markaas meel ciidamo xoog leh xukuumadda Soomaaliya ay ka fadhiyaan. inkastoo wararka ay yihiin markay ugu dhoon yihiin qaar duuldoola ururka SNM waxaa muuqata in uu qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa oo ah meesha ku dhow radioga magaaladaasi Hargeysa. wararka dhinaca diblomaasiyiinta ka soo baxay magaalada Muqdisho iyagu waxa ay sheegayaan in magaaladu gacanta ay ugu jirto xukuumadda inkastoo ay muuqato in dagaal uu ka socday xalito meel qatuleedka ee magaaladaasi. ururka SNM hadda marka la eego go'aanka uu ku gaaray weerarkaasi uu qaaday waxa muuqata inuu noqon karo mid ka dhashay kaalinta ururkaasi uu galay markii heshiiska nabadgelyo bishii Abriil ay kala saxdeen labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. heshiiskaasna waxaa mid lagu joojiyay colaadii sanadaha faraha badan dhex galay labadaasi wadan. colaadaasna waxay keentay markii dambe dagaalkii ka dhacay gobolka Ogaden sanadkii 1977. dagaalkaas kadibna gobolka la isku haystay Ogaden waxaa dhacday markaasi qolaba inay taageertay ururada ka soo horjeeda qolada kale oo colaadii halkaasi ay ka sii socotay inkastoo markaasi si toos ah dagaal aan iskaga hor imanin. heshiiskii haddaba dhacay bishii Abriil ee labada dhinac dhex maray waxaa macnihiisu ah markaasi kaalamadii la siinayay dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda labada xukuumadood ee labada wadan in halkaasi lagu joojiyo. Addis Ababa iyo Muqdisho labadooduba waxaa markaasi ay ku adkaysteen in la aamusiyo oo ay meel mariyeen reeriyadii ay ka kala hadlayeen kooxaha ka soo horjeeda labada xukuumadood. ururka SNM dabadeetna markii uu waayay taageeradii uu ka helay dhinaca wadankaasi Itoobiya waxaa quray markaasi u banaan waxa in uu xoog ku galo soodinta uu ka gudbo oo Soomaaliya gudaheeda uu galo isagoo markaasi isku dayay in uu ka samaysto saldhigyo wadanka gudihiisa halkaasi oo hawlihiisa uu ka fashado. ma cadda haddaba ilaa inta tirada ay leeyihiin ciidamada ururka SNM uu leeyahay laakiin qiyaasuhu waxay ku dhadhaweynayaan ilaa 3,000. mana cadda isla markaasi in weerarkaasi haatan ay qaadeen ururkaasi SNM ilaa halka uu gaarsiin karo. xukuumadduna waxay ka dhigtay waxay ku qosasho ay ku tilmaantay markaasi hawshooda inay tahay mid ismiidaamin ah. laakiin waxay khasab ah inay tahay arrin warwar xooga ku ah madaxweynaha wadankaasi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre in ururka SNM uu yahay mid awoodi kara weerar inuu soo qaado oo waliba guula ku gaari karo magaalooyinna uu u maleynayay markii hore in si xooga loo difaacayo ciidamo xoog leh Soomaaliya ay ka fadhiyeen. waqooyiga Soomaaliya marka la eego waxaa jirtay in hore uu gumaysan jiray dalkan Ingiriiska waxaana muddo dheer waqooyiga Soomaaliya uu sheegay in Faaraad soo qoray in laga aaminsanaa in uu yahay meel ay dayaceen mas'uuliyiinta dalka Soomaaliya. ururka SNM taageero xoog leh ayuu ka helaa goboladaasi. haddii haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu doonayo in uu qaboojiyo baaqaasi oo dareenkaasi ka imanaya muddada dheer marka la eego waxa markaasi ay noqonaysaa inuu tixgelin xooga siiyo waxyaabaha ay ku cabanayaan waqooyigu. kaasina wuxuu ahaa Martin Balaut. dowladda Soomaaliya